السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashiin aamina laka official walaalayaal waan idin salaamay salaan kadib waxaan idin sii wadayaa qisadii ku dhacday walaashiina Soomaaliyeed ilaahayna subxaanahu wa ta'aala inaad u baridaan una soo duceysaan baan idinka dalbayaa waa walaashin Ruwayda oo 3 caruura looga qaatay Sweden qisadii ku dhacday waxay inoo mareysay markii gabadheeda yarta ay ka haysteen gabar yar oo 10 jira waxay tiri gabadheeda yarta ayaa waxaan ku yiri maadaama aad leedihiin caruur baa dishaa ilmaha dishaa ka haysta maadaama kalarkeedana aad baa loo arkaya macnaha siday u eg tahay nabarada ku dhaca qof qarsoomaysa ma kalarkeedu waa faatax waa kalar furan orda ka haysta waxaan ku yiri dhakhtarka geysta haddii ay wax ku soo baxaan markaa igu soo noqda gabadha yar waxay tiri maalin oo dhan bay la maqnaan doonaan markay la maqnaadeen wax kale halkay ka sugayso waxay ka soo dhaadhicinayaan ay leeyihiin timahay ka jiidaysaa hooyada way ku diri timay ka ku jiidaysaa gabadhii waxay soo noqotay wax lagu soo akhriyay gabadhii lagu soo akhriyay guriga aan deganahay looga dhigay inuu guri nooc kale yahay oo dhowr meelood ama basement wax la yiraahdo guri hoose leeyahay gurigina waa 2 qol oo kaliya ogaada yani 2 qol oo guriga kor iyo hoos kale ma laha wadamadan waxaa jira guriyo hoos iyo kor kale laho dadku dhowr meelood macnaha uu guriga muxuu ahaa leeyahay laakiin 2 qol kaliya oo aan qofkii meel lagu xiri karin gabadha yarta ay leeyihiin guriga xagga hoose ku xirtaa waad silcisaa oo wiilashaad macnaha ka jeceshaa wiilasha wax ku qabta laakiin gabadha yarta waad silcisaa oo kale ilmi yaraa wax laga soo dhaadhiciyaa u soo noqonaysa waxay ku leedahay hooyo maad waalatay hooyadad bay ku leedahay hooyo miyaad waalatay ma adiga ku yiri gurigeenu wuxuu leeyahay meel hoose oo macnaha aniga la igeeyo la igu rafaadiyo kale miyaan leenahay maxaad u leedahay guriga miyaan macnaha 2 qol kaliya miyaan ahayn maxaa u leedahay miyaa madiga ku yiri waxaan madaba ugu sheekay maad waalantaa hooyo waxay tiri aniga kuma dhihin waxay kale ugu dhahayn bay tiri inaad timaha jiidaysid oo aad silcinayso ayaa la ii sheegay ma timahayga jiidaysaa ma waxaas oo kala sameynaysaa waxay tiri hooyo waxa anigu kuma dhihin sidoo u aamintay kadibna waxay tiri timihii baan u sharaxayaa timihii baan xooga dhigayaa sida kuwan Sweden-ka u dhashay oo kale timahooda caruurta loogu hagaajiyo kale lagu hagaajinayo waan fasaxayaa gabadha qurux intaan ka dhigo waa marka lagu soo diray gabadheeda yar qisada halkaas ay inoo joogtay isla bartii ay inoo joogtay ayaan ka sii wadaynaa iyo waxay leedahay Ruwayda أنا قلت لهم يا أخواني أنا بنتي لون جسمها شوية فاتح ليش ما تأخذونها للدكتور أنا ضربتها وسويت فيها شيء من اندلس أخذوا البنت وظلت عندهم يوم كامل بنت تعبانة وتقول يا ماما نحن ما عندنا شالرة نحن ما عندنا طابق سلدة مين قاعد يقول هذا الكلام يا ماما انت خرفتي انت قاعد تقولي markay kula hooy miyaad waalatay maada yar guriga kula sarsareeyaa meel kale كيف يجيبون هذا الكلام وقالوا لي بنبنان بالنا يا ماما قالوا لي امك تجر شعرك لما تصلحه انا قلت لهم timaha diga jiidaysaa markaad ii hagaajin lahayd قلت لها كيف قالت لي ماما timaha markaad hagaajinaysaa miyaad iga jiidaysaa bay ku tiri hooyadii انك انت تجريني بالشعر هذا قصة يعني 2019 قلت لها يا ماما كيف انا اعترف وبعدين انا خليته اسرح شعره يعني خليته مثل شعره وخليته بالشارع اوكي تخلصنا من هذا الحكايه ورحنا للقدام راحوا للابو ابو عيال الكبار qisadii markay saato gabadha yareed ku soo direen oo gabadha yareed hooyada ku tiri hooyo macnaha aniga waxa kumaan dhihin mana ku macnaha mid waxa ku tiri ma yihi oo timahi u hagaajisay oo qurxisay waxay tiri qisadii halka kuma harin macnaha horaay u sii socotay waxa loo tagay bay tiri caruurtayda aabahood caruurta waaweyn aabahood baa loo tagay waxay ka soo dhaadhiciyeen ma garanayay tiri nin aad u degan oo macnaha wadaada ayuu ahaa waxa laga soo dhaadhiciyay caruurta in macnaha anigu laygala cararayo kale caruurta in laga qaadayo kale laga soo dhaadhiciyo caruurta isaga inuu hayo waxa lagu yiri adiga kaala hay caruurta way xanuunsan tahay kadibna ninkii oo la igu soo diro dhig la qabta lahayn baa ila hadlay bay tiri waxaan u malaynayaa bay tiri anu maskaxiyan markaan maskaxdayda ka baaro waxaan u malaynayaa tiri inay soo cabsi geliyeen oo ay ka cabsiyeen kana dhaadhiciyeen inay ilmaha iyo isaga siinayaan waatan iyadoo ka sheekeynaysa marka ninka loo tagayo iyo marka uu iyada leeyahay caruurta intay iyagu qaadan lahayn aniga ii dhiib ابو عيال الكبار ابوهم وقالوا اولاد راح نجيبهم لعندك وبدنا LVO ما اعرف كيف عملوا لعبوا عليه
يعني انت اكيد مطلقة اكيد منه؟ هن ايه نحن كنا yaad مطلقين، kala بس tagteen انا hawaan اظن kala tagna انه bay tiri كثير ninkaa waa isfurnay خوفه وهو تقبل كلامه، لانه هو رجال متدين. مش معقول يعني يجيني للبيت ويقول لي يعني يا رويدة اولاد هذول بيد السوسيال وانا راح احميهم. قلت لهم بالكيف، waa nin wadaaday tiri وبعدين تشاكلنا وهو راح. يعني المشكله اللي هن تدبروا اياها، وانا اتصلت بالشرطه وصارت لي قصه ثانيه من هناك، والاب askartii معاهم. baa soo dhex gashay bay tiri aniga ninkii markay isku kaaya direen askartii baana soo dhex gashay qiso kalaa bay igu bilaabatay bay tiri oo macnaha ninkii ay igu direen qiso kale ay igu bilaabatay bay tiri iyo askar dambe iyo arrin كان cusub مفكر ياخذون اولاد مني وهو ينقذهم ويعطوه له، وانا قلت له هذا wuxuu u haystaa bay tiri ninkii uu igala murmay igula dagaalamaya in carruurta isaga ay u dayn doonaan oo aniga intay iga qaadaan isaga uu badbaadin karo laakiin waxay ku dhihi doontaa carruurta anay rabaan inay gacantayda ka bixiyaan adigana kuma dhiibayaan anigana gacantayday rabaan inay ka bixiyaan marka way nagu ciyaarayaan yacni dhexdeena carruurta ka baxayaan baan ku iri bay tiri ninkii قبل ما راح يعطوك الاولاد بس يطلعون من ايدي بس ضحكوا عليه، يعني قدروا يلعبوا عليه. وبعدين قالوا لي يا رويدة نحن عندنا شو اسمه كذا دليل انك مريضة نفسيا. هذا اخر 2009 وبنتي ال10 سنين عمره ايه عندنا كثير. kadibna waxay yidhaahdeen bay tiri daliil ama caddayn baanu haysanaa inaad waalan tahay ruweyda inaad waalan tahay ayaanu haysanaa daliil ah ayaanu haysanaa bay ku yidhaahdeen maskaxda in lagaaga jiro ادله انك انت مريضه نفسيا. اوكي قلت لهم ما في مشكله وراح نعالجك وراح نساعدك مع الاولاد، ونحن مو مثل الصومال، نحن حقوق النسوان عندنا عالي وحقوق ما ادري ايش كلام. قلت لهم حاضر waan ku caawinaynaa maadaama macnaha aan waali kugu tirinayno waan ku caawinaynaa adiga carruurta waan ku caawinaynaa halkani maaha soomaaliya oo kale maaha waa wadan macnaha carruurta iyo dumarka lagu qiimeeyo waa weliba xuquuqda dumarku aad bay u saraysaa marka dalkii soomaaliya oo kale ha u malaynin waana ku caawinaynaa waxay tiri waxaan ku yidhi xaadir diyaar baan idiinahay bal ii caawiya حاضر لو انا مريضه نفسيا راح اتعالج. كل مرة تجوني وتقول لي أنت مريضة نفسية، كل مرة ترجعون يعني من 2018 لل 2019 أنا ما أسمع غير إنه أنا mar walba waxay igu badiyeen bay tiri inay igu soo celceliyaan waad waalan tahay ilaa 2018 ilaa 2019 sana kaamila sana dhan oo buuxa ayay waxay ku celcelinayeen inaan waalnahay yani waad waalan tahay bay igu celcelinayeen bay tiri maalin walba waxaan waad waalanta ahayn ma maqlaynin أنا مريضة نفسيا عندي دبرخون على الأقل. قلت لهم حاضر بس أنا بدي منك مساعدة واحدة. شو هي؟ اتصل waxay dhihi doontaa maadaama ay leeyihiin waad waalanta ay ku soo celinayaan waxaan ku yiri bay tiri bal waayahay caawitaanku waan idinka rabaa laakiin hal arrin baan rabaa inaad ii samaysaan waa maxay bay yidhahdeen arrinta aad rabto waxaan rabaa bay tiri inaad dhakhtarka intaad u tagtaan idinku aad ku tiraahdaan ileen qofka tuugga waxaa la yidhi tuug markaad ka shakida tuugga inta wax loo dhiibtaa la yidhahda walaal adiga ii sii hay moogtahay qofkaad ka shakido isagaa inta laabta loo sii dhiibta walaal ii sii hay marka qofkii muxuu xadayaa waabad u dhiibatay moogtahay iyadii caqli bay keentay ruweyda ilaahay caqliga ha u daayee waxay tiri anigu sooma waalahaa idinku dhakhtarka igeeya waxaad ku tiraahdaan way waalantaa maskaxda looga jiraa waa hooyo ilmaheeda aan korsan karin waa hooyo aan waxba la socon karin oo maskaxdeeda aan dhammaystirnayn waa hooyo aan ka baqayno macnaha inay dhibaatis ku geysato kale hooyo aan ka baqayno weeye maskaxiyan aynan oo ka deganayn dhakhtarka idinku sidaa ku dhaha kadib maxay samayn doonaan way ka diidi doonaan inay dhakhtarka geeyaan ilaa way ogay inay khaldan yihiin waxaana waa kambani wada shaqaysta waa shirkad ka lacagaysata ama ka tijaaraysata carruurta waa shirkad ay isla og yihiin kuwa carruurta qaata iyo kuwan booliska askarta laftirkooda dhakhaatiirta laftirkooda qaar baa la shaqeeya waa arrin ku soo badatay hadda islaamka weliba lagu samaynayo dadka muslimiinta aad loogu gurtaa ay u badan yihiin carabta iyo soomaalida haddaad moodaysaan soomaaliya waxaana inay khiyaali tahay ama been tahay channelkan ama dadkii luuqadda carabiga yaqaana ha dhegaysteen waxa la shu'uuna islaamiya baa la yidhaahdaa waan idiin sheegayaa channelkeedii kama qarinayo channelkaas daawada
waxaad arki doontaan dadyow badan iyo islaam badan iyo muslimiin badan iyo carab badan oo ooynaysa oo caruurahoodii laga gurtay weliba dadkii qaxootiga ahaa ee suuriya ka yimid ee iyaga laftirkooda naftooda la soo cararay kuwo badan oo turkiya kuwo badan oo ay ka yimid afghanistan ka yimid afrikaanka kale hindida bakistaanta soomaalida cid ayna ka qaadan oo ajnabi aan ahayn ma jirto caruurtii markay qaataan waxay ku qaadanayaan lacag badan bay ku qaadanayaan lacagtiibaa marka lagu kala baaya mushtaraya reerka loo geeyo qoyska loo geeyo ilmaha lacag badan bay qaadanayaan qoysas badan baa isqoray oo isdiiwaan geliyey oo isku qoray inay caruurahaas rabaan inay korsadaan mid walbana inuu ilmihii markaas silciyo siduu doonoon uu ka yeelo waalidiintiina la waalo oo dawooyin la siiyo waxaasoo dhanna waxa lagu samaynaya waa muslimiinta dalkooda inta loogu tego lasoo qaxiyey gurigoodii baa loogu tegay hadda sida suuriyaankaoo kale iyo waa lasoo qarxiyey lasoo la baabiyey dibaa yurub marka la keenaa lagu ciyaaray islaamka sida loola dhaqmayo iyo xitaa qaar gaalaha sida loola dhaqmayo channelkan baa idinka sheekeyn doona haddaad moodaysaan gabdhaha soomaaliyeed carruurta laga qaatay inay been sheegayaan guri ilmo qurux badan laga qaatay ma jiro waxay ku qaataan carruurta kuwaan xalay daawanaya waxay yidhaahdeen dhakhaatiir hadda waa niman dhakhaatiira niman carab oo dhakhaatiira dhakhtarro waaweyn ah oo waddanka ka ah qaar jarmalkay joogaan qaar swidentaasay joogaan qaar waxay joogaan faransiiskay joogaan carruurahoodii baa laga qaatay ilaa markii dambe iyagii muxuu aha laga dhigay inay waalan yihiin waa laga dhaadhacsiinayaa waxay hooyo carabiyada lahayd ilmo yar baa marba inta loo tago waxaa leeyahay haa nabar yar hadduu ku dhaco maxagtin yar ku dhacdo haa aabbaha baa ku dili soo maaha ilmihii markuu yidhahdo maya haddana maalin kalaa lagu soo dhaa haa wadii lowday aabbaha baa ku dili soo maaha haa nabarkan aabbaha baa kugu dhiftay soo maaha hooyada baa ku dishay soo maaha maya ilmihii wuxuu leeyahay ilmihii qofkii baa shakinaya markuu daalo oo su-aasha lagu soo celiyo haa iga taga oo kale haa hebel baa igu dhuftay waa intay rabaan gabadhan markaa waxay ka dhaadhicinayaan leeyihin wad waalanta iyadiina maskaxda gambar gaaban ba ugu fadhiisatay ilaa khayra siiye waxay tiri ma waalnay haa idinku dhakhtarka igeeya dhakhaatiirta qaar baa daacada marka kuwa aan ogeynin la shaqaynin intooda badan qaar baa daacada weliba dhakhtarka inta badan macnaha ma aaminayo waa booliskoo kale boolisku waa iska aaminayaan laakiin dhakhaatiirta inta badan shahaadadooda ilaashadaan marka waxay tiri maadaama aad leediin wada waalintiin dhakhtarkan aad leedahay igeeya idinku waxaad ku tirahdaan hooyada baa mamnuuc cabsi qabnaa 3 caruur bay haysataa hooyo maskaxdeedu dhammaystiran maaha hooyo duni la socota maaha bal idinku ku dhaha bay tiri dhakhtarka maxay ku dhihi doonaan maya dhakhtar kuma geynayno ilaa way ogyiin inay meeshan baamushtar ay ka wataan moogtahay ma dhakhtar kuma geynayno laakiin waa inaad aamintid horta inaad waalan tahay adigii baan aaminsanayn inaad waalan tahay adiga markaad aamintid bay inoo ahaanaysaa laakiin hadda dhakhtar laguma geynayo waa inaad aamintid inaad waalan tahay bay ku leeyihiin waxay tiri say maalin walba iigu celcelinayaan maalin walba waxay tiri ii imaanaya waxay leeyihin waa waalan tahay maalin kasta waa ii imaanaya 2 beri 3 beri markay joogaanba wiigii 2 beri 3 beri albaabka lagu soo garaa ciyaalka say yihiin baa rabin inaan aragno weli markaa way rafaadinayaan waa markay carruurta qaadanaynin rabaan inay qaataan للدكتور وقولوا يجي دكتور كان كويرة بيتر أو واحد كنت على والنتا قبلنا ونحن خايفين عليها والأم عندها أجريزيفيتيت وكب قينا ضحى بيتر أجريزيفيتيت ما بعرف بالعربي وعندها أيوة ولا ما عندها الاستابيليتيت ما تقدر تركز بشيء يعني شغلات هو والله ما سقطوا يعني سيمتومات جاوا قلت لهم كلها هذه علي وانا ما بعرف قاعده انظف البيت واروح للمدرسه وارجع واجي waxay tiri anigii bay waxyaabo badan ila yimaadeen ila yihiin waad وبعدين waxay tiri anigii baa shakiyay waxay rabay tiri waxaasoo dhan aad macnaha sheegaysaan iyo xanuunka iyo waxaan ay sheegaysaan anigii guriga waxay tiri waan ka shaqaystaa ilmahayga waxaan u qabsadaa cuntadii baan u kariyaa noloshaydii baan raacday sideen ku waalnaa soo niga miyir qaba wallaahi bilaahi tallahi waa cajiib والله عجيب ما تقدر تركز بشيء يعني شغلات امراض نفسيه يعني سيمتومات جابوا لي قلت لهم كلها هذه علي وانا ما بعرف قاعده انظف البيت واروح للمدرسه وارجع واجيب اطفالي waxaasoo dhan baan leeyahay anigoo wax walba qabsanaya carruurtayda guriga keenaya cunto u karinaya wax walba qabsanaya شنو هذه؟ عاد لا دكتورك يجي للدكتور قالوا لا ما بيصير انت مانك معترفه رويده
ما بالرميسنا مريضة إناد والنتها نفسياً ومانك معترفة. على فكرة بيعملوا هذا بالله الأسلوب عليك يا عشان مصطفى. يوهموا بعض النساء. عملوه مع لين الله يرحمها حتى انتحرت. لين الله يرحمها. لين وقبر يدنا ودلتي دلك مغرب أما مروكو أي ودلتي مغرب عربي قالوا وير هذا مروكني إنجليش أهم بالوا وير هذا لينا وقبر وير لقى قاتي يدنا ودن كاسيس ويرن بلقى قاتي هل ويل بيهستي ويل كذي بلقى قاتي كدبنا waxay ka dhacdhiciyeen inay waalantahay daawooyin bay siiyeen daawooyinka laftirkooda iyaga qofka ku waalaya daawooyinkii markay siiyeenna muddo markay joogtay gabadhaas way isgubtay way dhimatay Allah u naxariisto wiilkii yaraana weli iyaga haysta marka wuxuu yiri maadaama ay adiga hadda kugu celcelinaya wad waalantahay waa arrintii ay ku sameeyeen liina oo kale ayay kugu sameeyeen siday u wadeenna waa ta ay dunidan ka tagtay marka saasay dawooyin u siinayeen buu yiri wariyaha ku dhahay haabay tiri kadibna waxay ka waramaysaa inay liina laftirkeeda wada hadleen is arkeen waxay tiri liina markay ila hadasho waxay ugu tiri say igu wadeen ii lahaayeen waa waalantahay ayaan ka ogolaaday bay tiri daawadii baa marka qofka maskaxda ka sii waalaysaa waa inuu qofka dawada diido. أنا يوم ما شفتها وهي قالت كل شوية جاءوا لي وقالوا لي خذي أدوية وأنا قلت لهم حاضر ولسه عندي مشكلة أنا تعبانة والله أنا حسيت نفسي عليهم يعني في مرة أنا قررت إنه أسمع كلامهم وما عندي. waxay tiri mar kastaba inta ii yimaadaan liina waa gabadha dhimatay bay ka waramaysaa ruwayda waxay tiri liina mar walba inta u yimaadaan mar kastaba inta u yimaadaan bay ku yiraahdaan daawada qaada dawadii waan ka qaatay waan ka yeelay bay tiri tacbaan baan noqday waan ku rafaaday nafta ii keeneen bay tiri kadibna waxay tiri ilaa aan aaminayba inaan waalnahay marka waxay tiri aniga laftirkayga nafta ii keeneen bay tiri aniga ruwayda nafta ii keeneen macnaha marka qaar inaan aaminaan ka baqayaa bay tiri waxaan igu akhrinayaan lee waa waalantahay. عندي حل ثاني يعني أسبوع يومين 3 يدقوا لي الباب بدنا نشوف ويجيبا لو مالي 3 مaalmood bay igu soo garaacaan albaabka dhahan caruurtan fiirinayna مادام انك انت مريضه نفسيا maadaama aad waalanta maskaxda lagaaga jiro. وبعدين قالوا لي لا مادام انك مانك معترفه فيه وما بدك تروحي لوحدك هناك يعني نحن لازم نشوف حل ثاني. وشو صار حل الثاني؟ وديت الصبح اولادي. waxay tiri maadaama aadan aaminsanayn bay igu dhaheen inaad waalan tahay maskaxda inaad ka jiran tahay inaad maadaama aadan aaminsanayn maalintiina wiigiina ay igu soo noqdaan 2 jeer 3 jeer ay albaabka igu soo garaacaan nafta ii keeneen ayay waxay igu dhaheen waa inaan xal kale raadino marka waxaan ku tiri xalka kale aad la imaanaysaan maxay tahay xalka kale waxay noqotay bay tiri inay maalintaas ilmihii iskuulka ugu tagaan macnaha iskuulka ugu tagi doonaan sheekada kama hor dhacay hadda ka sheekeynaysaa maalintii caruurta la qaatay. الكبار مدرسة والبنت الصغيرة وديتها المدرسة الحضانة والله مذكرة بنت caruurtayda rooroon bay tiri iskuul baan geeyey gabadhayda yarna iskuul macnaha u dhow baan geeyey bay tiri gabadha roon ayaa waxay samaynaysaa bay tiri intaan sariirteeda ugu tago waxay ugu leedahay hooye ma raba maanta iskuul inaan tago ma ay rabta bay tiri iskuulka inay aado waayo iskuulka hadda kahor waata maclimadu ay dhibka u keensatay waa inta iskuulka intay ugu tageen hadda kahor bay waxay ku yidhaahdeen hooyada salaad bay kugu khasbaysaa hooyada way ku xumeynaysaa hooyada way ku silcinaysaa annaga garabkaaga annaga kuu joogno waxay gabadha yarna tiri hooyada dhib iima geysato imana khasabta naftana iima keento meesha la igu dhibay iga daabay bay gabadhu markaa leedahay gabadha yartaa markay u dirayso waa maalinta iskuulka laga qaadan doono arrintu dhici doonto waxay tiri gabadhayda yartaa ooyin bay qabsatay iyadoo ka baqaysa iskuulka nacaysa oo aan rabin ayaan waxay tiri u dirayaa iskuulka maalintaasna waxaan yacni tamaniyey ama aan rajeeyey xitaa haddaan wejiga ama madaxa ka dhunkan lahaa maxaad ugu dirtay ayaa i qabatay bay tiri gabadha yartaa maalintaas way ooyeys doontaa markay rowda halkaa sheekada marinayso waa maalintii ugu nasiibka darnay. الكبيرة بالسرير وتقول لي ما بدي أروح للمدرسة يا ريتني لو بصيتها بالرأسة وسمعت منها وما خليتها تروح يا الله كانت تقول لي يا ماما أنا ما بدي أروح للمدرسة
ما بدي مرة أشوفها يا بسكولك إن أنت جاي لحي ليش؟ بيتري قالت لي راح ننقذك من أمك، في أحد ينقذني منك؟ قالت لي كذا وإيش ترى يا جاي مصطفى، بيتري إن هاي إيجا البنية قاعدن الصغيرة. دونان مرة بيتري سكولك إن أنت ماني مرتاحة اليوم، ما أنا أنتك خايفة، مفرح سني سكولك إن أنت هو أنا يا ما بدي بيكتري أروح من المدرسة وأنا غصبا عليها فيأتها وقلت لها يا ماما ما بيصير إلا خير، يلا قومي يلا نروح نبكم الجارة المدرسة. يعني سكولك قاعد كوري بيتري وأيوه خص بيتري إن سكولك ودرو وهي خايفة وما هي بدها ضبقي أصلا ساندري تري المدرسة، ما وعبسن بدها تسمع اسم المدرسة، لأنه حتى مقع مدرسة كذا دام مرة سكولك ما راحوا يربني لها مقشو وكلمتها قولي أمي تستعبدني، قولي أمي تقول لي صلي، وقولي قالت لا أمي ما واي عمرها هدا هذا كور الشعور. بايكودين هويدا واي وقالت لي كديبتا يا هويدا ماما سدني والله كترادا هاي هويدا المرأة توكي قالت كترادا لي راح ننقذك بالشرطة وتجي الشرطة وتربط أمك وراح نأخذك لا تخافي. habaqin bay يا ku ماما dhaheen أنا oo خايفة iskuulka ما anaga بدي kaa أروح. kaxaynina askar baan keenina hooyadaan بس axkaam أنا ما qaban karta سمعت markaasaasay منها igu dhaheen bay tiri hooyo وديتها، وبعدين سوسيال متصل فيني وأنا بالبيت وأجهز نفسي وأروح gabadhii markay المدرسة. iskuulka u diray waxay tiri قالوا لي رويدا anigii iyagii baa telefoon ii soo diray anigoo isdiyaarinaya mindhaayadan iskuul bay tegaysay hooyada anigoo isdiyaarinaya ayay ii soo direen telefoon carruurtaydina maanta waa aniga iskuulka ku qasbay u diray waxay tiri markay ii soo direen baan waxaan ku tiri khayr ma carruurtayda wax ku dhaceen maxaa dhacay mayaa lagu yiri horta kaale noo imow markay timaada maxaa dhici doonaa ma lagu samayn doonaa markaa ruweyda carruurta waa la qaatay iskuulka laga qaatay lama socoto ayadii baa loo yeeray marka loo yeero oo ay maxay ahaa ay u tagto waxaa loogu yeerayaa oo loo keenayaa laba nin oo xoog intuu laaleeyay aad yaabto oo wata ul bir ah labada nin ayaa garaaci doona ruweyda labada nin markay dilaan oo ay marba dilaan naagihii meesha taagnaa islaamihii lacagaa lagu soo siiyey mar walba waxay rabaan inay kaga yeersiiyaan waa waalnaan aqbal bay dhaheen ayaa fadhiiso oo na maqal oo fadhiiso aamin inaad waalan tahay aamin maskaxdaada horta ha gasho waaba lagu khasbayaa maskaxdaada horta ha gasho haddii kalena waa tan waxay tiri laba nin oo indhahooda haddaad aragta aad ka naxayso ayaa la ii keenay bay tiri i garaacay waddankan la moodayay tiri inuu sharci leeyahay wadda markii la moodayay inuu ilbaxa yahay baa saa samaynaya bay tiri yaa akhi mustafa waa wiilka waraysanaya ee carabka ayay la hadlaysaa waana la dili doonaa waana la garaaci doonaa carruurtii oo laga qaatay ruweyda waxay soo xasuusan doontaa dalkeedii hooyo iyo muqdisho iyo caasimadeennii soomaaliya waxay ku ooyeysaa ruweyda oo ay leedahay yaa rayd hoogtadaydii haddii aan dalkaygii hooya joogi lahaa maxaa iga soo kaxeeyey maxaa soo waday maxaa halkani keenay maxaa waddankayga iga soo kaxeeyey sheekadu halkaasay kasii soconaysaa waa tan iyadoo intaa leh قالوا لي رويدا تعالي هلا للكونتور بتاعنا. قلت له إن شاء الله خير ما في شيء بس قولي لي طمنوني شو صار. waxa dhacay ii sheegay tiri waa marka loo yeerayo ay leeyihiin noo kaale تعالي يا أخي يا مصطفى البلاد الحرية النسوان السويد أخش الكونتور وأقعد بالكرسي يجيبوا لي 2 فاكت 2 رجال يعني كبار بالجسم كبار ومعاهم عصاية حديد وين البرقة والتأييم يقولوا لي هذول السوسياليين يشوفون ما بعضهم يقولون اي نحن انقذنا الاولاد يا مريضة نفسيا ناقيا مسكح لو قلت عروتها نوع قاعدا ويطلعون على الفاكتة كدبنا ويدليا يعني ما في كلام ما سمعوني وقال لي انقذنا الاولاد وما راح تشوفيهم وانت غصبا عنك تتعالجين يا رويدا وتكون قصبنتين داوينك قادتي عروتها وانا قاعدا وانا كو قصبنتها حتى هذول الرجال يدخلون ويضربوني waxay timar barnaamijka baa soo gala way dilaan يعني الكلام اللي هن يقولون وشكل الرجال هذه بيني وبينك تمنيت والله العظيم اني ما طلعت من الصومال والله كحمادين aan dalkayga hooyo ka soo baxo muqdisho maxay ka soo kaxay قلت شو اللي جابني انا هون انا شو اللي جابني انا halkan keenay baan dhahay والله ارحم لي الشباب والله ارحم الشباب بابا ii dhaamay bay tiri maxay keenay halkan ماشي اذا خلصتوا كلامكم فيني اطلع فيني اروح بس بدي اهرب منهم يعني خايفه inaan ka cararaa un baan rabay tiri meesha يوم قد الدنيا بايده عصايه اخويا حديده ويطلع علي بالعيون العدوانيه يعني اي حركه مني بدهم يضربوني اثنيناتهم وبعدين markastoon dhaqaaqaba way dilaayeen
كأني أنا هاجمت على السوشيال. بعدين قالوا لي اقعدي اسمعي الكلام. waxay tiri naftii baan la cararay markay dileen oo birta igu garaaceen baan la cararay kadibna way soo qabteen waxay igu dhaheen fariisanaya اقعدي يا رويدة ما عندك استابيليتيات ما fariisan kartid fariiso وانت تحكين معاي بهاي الطريقة وجهزتي لي كمان رجال لحتى يضربوني كيف أنا يصير عندي saa u fariisanayaa bay tiri waa qaab la dilayaa u jeedaa in la dilayo qof xanuunsanaya soo fariisanaya أنا ما يتم خايف يا مصطفى أنا خايف. وبعدين ما بقي بيتري وشافوا إنه ما راح أتحرك شافوا إنه أنا ما راح أمد إيدي كده waxay arkeen baytiri inaan gacantaydu dhaqaaqayn aan waxba qaban karin tabartii ebel ka dhigay كان أسود يوم maalintii madoobeed bay ii ahayd bayt وأنا طالعة الرجالين هذول مو مستعبدين يعني هاي قاعد تطلع بالسلام زعلانين labada nin waxayba ka xanaaqsanaayeen baytiri ma barabin baytiri anoo nabad qabayna meesha ka soo baxo can you go for B snälla can you go for B maraba xitaa miya fasixi kartaan musqusha inaan tago ayaan ku ribaytiri وكل يوم يتصلون فيي وكل يوم يتصلون فيي بعدين انا دبرت شو ka soo cararay tiri maanuba telefoon bay soo diraan كل يوم يعني ورايا موته وكل اخذوا الاطفال في اليوم هذا اخذوا الاطفال ايه خلاص اطفالي راحوا اصلا 3 caruurtaydu way qaateen bay tiri khalaas wariiba weydii caruurta markaa maqan yihiin haa bay tiri way maqan yihiin البيت ويصرخ ويقول للصوماليين انقذوني ماما wiilkayga yarka waxay tiri intuu ka soo cararo banaanka istaagay buu hooyo da Soomaalida ku dhaha ay badbaadiya يلا اطلعي انقذيني من هذول القحاب انقذيني من هذول الشياطين بالدنيا اخذوني يا ماما shayaadiintan iga qabta ayuu leeyahay wiilkayga داخل عندهم سبحان الله بعد ما هذا صار anigu ii yeeranay in la haysto xitaa ma oga bay tiri aniga aan iyagu u xirna مثل العاد وقلت لا حاضر قلت يعني اشتغل معاهم واسمع كلامهم waxaan ogolaaday inaan maqlo inaan la shaqeeyo بعدين ايش عملوا فقط يعني كل يوم يتصلون فيه تعالي kadib maxay sameeyaan bay tiri maalin walba inay ii yeeraan telefoon ii soo diraan وين الحقوق المرأة يا ناس xuquuqdii dumarka xagee ka dhacday baan ku yiri بس اشوف اولادي لا caruurtaydii ogolaaday inaan arko حاضر راح تشوفين شاس تليفون baan ku ogolaanina baa lagu yiri caruurta kula hadashay وبعدين كل شويه حاضر baan nabi tiri waa ogolaay marka بالترمبيسه انت بدك اولادك عن جد ايه انا بدي اولادي والله صدقناكي حلو انك بدك اولادك بس لازم تعترفين انك انت مريضه نفسيا لحد الان انت ما اعترفتي وعايزينك تعترفي طب ولو اعترفت oo caruurtaadii baad rabtaa macnaha waa ka dhab miya caruurtaadii inaad rabto bay ku yiraahdeen ha caruurtaydu waan rabaa waa fiican tahay ba hadaad caruurtaada rabto laakiin waa inaad aamintaa maskaxdana aad ka dhaadhiciso maskaxdaadana aad gelisay inaad waalan tahay ayay ku yiraahdeen wariyiba marka uu la yaabayaa hadalka wuxuu leeyahay hadii aad macnaha aamintidna kuma deynayaan hadalka wariyahan dhageysanayna هيعملوا فيك زي ما عملوا في لينا واخذوا الولد ايوه اي والله هذه هو القصه haddii aad maqashay buu yiri sidii gabadhii liina Allah u naxariistay ayoo kale ku geli lahaayeen macnaha liina way maqashay dawaysiiyeen kadibna way waaleen marka xitiraha bay tirsaasay la rabeen laakiin anu ma maqal bay tir ma maqal انها مريضه نفسيا واعطوها ادويه وفضلوا يطردوها لحد ما انتحرت. طبعا انت ان شاء الله مؤمنه بالله وعارفه انه ilaa ay isdishay gabadhaasi ma ay deynin bay tir ma ay deynin buu yiri wariyaha sidii u wadeen oo dawo u siinayeen oo nafta ugu keenan oo ay maqashay ayay arintaas samaysay laakiin adigu waxa tahay gabar muslimada wanaagsan baa tahay wuxuu niyada u dhisayaa ruwayda umalayn ma yiri waxa soo kala aad sameyn doonto dabcan bay tiraan uma sameynayo انا ما سمعت لهم قلت لهم حاضر بس انتم لازم تبعتوني للدكتور لحتى الدكتور يكشف عني مو تبعتوا انه انا معترفه وانا مريضه نفسيا وينوموني هناك والدغري ادويه ولا وقفنا ما شاء الله الهي خرس الهي سبحانه وتعالى دبكا كسار الروض رويده waxay tiri waayahay waan idinka ogolaan doona dawooyinkii wixina way ka dagaalanteen in qaadanin waxay tiri waan idinka ogolahay inaad macnaha aad tiraahdaan be laakiin inaad idinku dhakhtarka ii geysaan oo dhakhtarka uu soo cadeeyo la wixii cadeyn in lagu haysto ma ogtahay inay waalantahay in kale idinka kaxeeyaan ku irbay tiri السيكولوج والسيكياتريكر
وبعدين مصطفى ايش يصير؟ يقولوا لي يلا روحي روحي يلا روحي روحي يلا روحي روحي، يعني وبالاخر وحدك waxay igu dhahaan bay tiri adiga haddaad rabto dhakhtarka u tag قالت لي رويدة انت عقلك كيف يشتغل يا رويدة؟ قلت لها شنو؟ رويدة يعني مدرسة اطفال، البيداغوج حق المدرسة. naagta waxay tiri habar baa ii timid markii dambe iyaga ka mid ah marka ila yaabeen habar baa ii timid waxay igu tiri horta ruwayda caqligaaga suu shaqeeya waxaan ku tiri maxaad ka wadaa waxay tiri iskuulkii ilmahaaga tegayay baa naag cilmi nafsiga baratay ama cilmiga maskaxda baratay noo sheegtay inaad waalan tahay bay noo sheegtay naagtaasaana nagu tiri waad waalan tahay annagana waan ku aragnaaye adigu macnaha maxaad u aamini lahada inaad waalan tahay ma annagii baad naga dhaadhicinaysaa inaada waalanay bal iyaga laftirkooda iyagii baa waxay ka dhaadhicinayaan ruwayda inay waalan tahay iyagu suma arkaan ولا مروديك ذكرت صار ماركة مثل كل أركاب لي يجمع والا هذا مدرسة أطفال، امرأة كبيرة سويدية يعني عندها دراسة حق السيكولوج كشفت إنك أنت مريضة نفسيا، ونحن السوسيال معاها بالهاي الكلمة، وفوق هذه كله كلياتنا ولا شيء، وأنت الصح ما ضاب صح كويس ترى أنا هذا الكينية ناكتي سول قبل بدي نمر ميسنس لأنه أنت تخيلي قالت لي إنه نحن كلياتنا غلطانين وأنت صح. مو حكانا عن صلنا إنه كل جيل ولا خلدنا عدوك لازم تمشين على كلامنا. قلت لها ما في غير الله سبحانه وتعالى يقدر يمرضني عقليا أو يشفيني، ما دام إنه الله. ما شاء الله ما شاء الله رويدة الله يعونك. waxay tiri ila naagta waa ku qasbaysa ilaa waad waalan tahay annaga nagama dhaadhicinaysa hadalkeenaad maqlaysaa bay tiri annagana dhageysanaysaa waxay tiri ilaahay unbaa i waali karaa ruwayda ilaahay unbaana macnaha caafimaad siin karaa insha allah qaybta lixaad baan insha allah kusoo dhamaystiri doonaa qisada haddii ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu